بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كي شناد حرunta حرور maanta casharkan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha khadka ku jira warka ku jira whatsappka wareegaya tiktokka wareegaya youtubeka wareegaya idaacadaha reer galbeedka wareegaya idaacadaha kale ee xukumaan wareegaya ee afafkeena ku hadla waxaan odhanayaa hal aray casharka ku jira ta waxa weeye waryaan laydin qaldin waxay idinku qaldayaan ninkii la odhan jiray epstein ee yuhuudiga ahaa maraykanka yuhuudiga ahaa ee yuhuudda u basaasi jiray ee somalilan xitaa aqoonsigeeda wuxuu ku jiray kuwii ka dambeeyey ganacsi saddexdii arrimood ee uu somalilan ka lahaa waa sheegay sawirada aflaanta la matelayo waa aflaanta aynu ognahay ninkiiyo gabadha ka dhexeeya hablaha yaryar iyo biyaha berbere agteeda ku jira iyo batroolka iyo saliidda waa saddexdaas waxaan arkaa dad soomaaliya dad waxaan arkaa muslimiin oo la cararaya oo leh jeffrey iyo kuwa kale way xumaayeen maamay habka reer galbeedka oo dhan baa xun habka ma jeffrey epstein waa qofka keliya la ogaaday ee la fashiliyey sanada lagu daba jiray inta aan la fashilinaya ilaa imika joogta ra-iisul wasaaraha ingiriiska kii ka horreeyey kii kasii horreeyey ee ilaa maanta sameynaya hablaha yar la seexanaya dhibaatooyinka sameynaya dembiga waa ka holland waa ka finland waa ka sweden waa ka denmark waa ka norway waa ka jarmalka meel fayo ma jirto maraykanka hadalkiisa bataa kanada hadalkiisa taa australia hadalkiisa taa new zealand marka yaa laydin qatin war habka barta sida loo doodo war yaan laydin khiyaamaynin yaan laydinka dhigin 5 nin oo xunxun shanta nin way xunxun yihiin ingiriiska safiirkii ingiriiska u fadhiyey maraykanka sanadkii hore ma 10 sano ka hor sanadkii hore iyo boqorka ingiriiska ku-xiga walaalkiis boqorka kale qabsanay doona ayaa magacan ka xumeeyey ingiriiska naag muslima waa caynkaa leh ka sheekee ana waxaan leeyahay doqon sana gabadhu se maxaa ka siiya waayo weligeen may fikrin wixii laga dhadhiciyey marka yaa laydinka dhadhicin waxaa waar habka oo dhan baa xun habka ingiriiska sidee buu ingiriisku waddan kale ku gumaystay kenya ku gumaystay soomaaliya ku gumaystay nigeria ku gumaystay afrika dadka uga soo qaaday madow uu ka iibinayo maraykan habka haddaan xumayn 600 sano ayuu xun yahay marka yaa lagugu qaldin lagu odhanay shalayoo keliya qaldamay anu waxaan taaganay may 20 sano ilaa dhalinyarada markaa 20 jirka ahaa waxaan taagnaa war habkiinu wuxuu yahay waayo qof bini aadana ma gumaysto qof bini aadana ma iibiyo sida xoolaha dadka madowga maraykanka ka hadlaya iyo koonfurta maraykanka marka yaa laydin qaldina laydin odhanin 5 ninoo ayuunbaa xun talabaad u fiirso raggan hablaha yar la seexanaya dadka laynaya waa bill gate waa elon musk waa madaxweynaha maraykanka imika jooga donald trump waa boqorka ingiriiska waa andrew waxa weeye kii ingiriiska safiirkii ingiriiska sanadkii hore maraykanka u fadhiyey sheekadu way dheer tahay waa hablo yaryar 12 jir qaar waaweynay ku jira laakiin 12 jiro ayaa ugu waaweyn 9 jir iimaylada la akhrido iyo fiidiyooda toodayaabisa marka yaa laydin qaldin war caqligiina isticmaala war goorma caqligiina isticmaalaysaa goorma ayaa caqligiina isticmaalaysaa war habka reer galbeedku